قصة مانتا وقصة مهمة آدو قيمة بدن si xaqiiqo oo dhab dhacday mar dhowna dhacday waxaa laga yaabaa inay ilinka keento si fiican u dhageyso ka faa'iideyso faa'iidadani iyo waxaad u maleynaysid walaalaha kale u soo qor ha ka bakhiilin alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaal joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimco walba iyo qiso cusub qisada maanta waa qiso xaqiiqo oo dhacday mar dhowna dhacday waxayna ku dhacday wiil iyo aabihiis iyo nin lacag ku lahaa maalin maalmaha ka mid waxaa wada fadhi wiil iyo aabihiis ayagoo guriga iska joogo iska sheekaysanaya albaabka waxaa loo soo garaacay xoog albaabkiyaa la furay waxaa soo galay nin qaylinaayo salaamu calaykum asigoo dhihin duqiyo qaylo dhagaha u saaray wuxuu yidhi ilaahay ka baq lacagtan kugu leeyna hadda isii odaygii hoos uu fiiriyey wuxuu sameeyo garan waayey wiilkaa wuxuu ku yidhi adeerow isdeji aabahay maxaad ku leedahay wuxuu yidhi lacag 9,000 oo riyaalan ku leeyahay wuxuu yidhi khayr ku bishaarayso isug wax yar qolkiisoo galay wiilkii lacag uu aruursanayay inuu ku guursado oo 27,000 dhan ayuu soo bixiyay wuxuu yidhi adeerow lacagtan xisaabo waa 27,000 inta kalena anaa kuu gudaay aabahayna mar kale ha u imaanin markii arrintaas dhacday odaygii wiilka dhalay ninkii oo lacagtu leh wuxuu ku yiri niyo lacagta ana ka qabo wiilkan kaama qaadanin lacagtana wuxuu u aruursaday lacagtiisa u soo celi waxaaga ana igu leedahay ninkii wuxuu soo istaagay maya lacagtaydana haddan ka raba wiilkii soo dhaxgal wuxuu ku yiri adeero soo 27,000 kuma siinin ha wixii hadda ka dambeeyo aabahay uma iimaan kartid waxna ma weydiin kartid aniguma ana ku dhameystira haddana maca salaama ninka sidii uu ku baxay wiilkii aabihiisu u tagay madaxuu ka dhunkaday wuxuu ku yiri aabo aniga iyo waxaan haystabo adiga ka qaalisan lacagtan waxba ma aan shalan sameeyay birina ka badana sameeyna aabihii oohin wuu ooyay wiilkiisu xubnihagu siiyay wuu u ducooyay wuxuu yiri ilaahay khayr adduun iyo aakhiro ha ku waafajiyo maalintii ku xigtay wiilka shaqadu aaday shaqada asigoo joogo walwalsan waxa u yimid saaxiibku wuxuu ku yiri saaxiibo halkeed ka baxday long time marran iskeen dambeysay intee ka baxday maxaa ii gooysay marka dambe wuxuu ku yiri saaxiibo xalay waxaan la joogay nin oo businessman dadka tijaarta la joogay wuxuu raadinay wuxuu i weydiiyay qof akhlaaq leh cilmina leh amaana leh weydiiyay adaa maskaxdeeda ku soo dhacday waxaan rabaa inaa shaqadaas aan ku geeyo shaqadan ka soo tag shaqo ka fiican aan ku haayay asigu wuxuu yiri waayay aan sameyn laakiin soo baxda qadana aadeen markii aadeen kadib ninkii u tageen ninkii wuxuu ku yiri meeqa qaadata bishi markaas wuxuu ku yiri waxaan qaataa 4,970 riyaalan qaataa markaas wuxuu yiri lacagtaas ka soo tag istiqaaladaada gudbi 15,000 ayaan ku siinaa bishi inta kaleemiya faa'iido kasto ka timaadana waxa leedahay 10% inta kaleeman gaari cusubna waa leedahay guri waa leedahay hada guri haysatidne ijaarkiisan ku siinayna yani hada guri degantid ijaarkiisan ku siinayna 6 biloodne lacagta waa ku horumarinayna cunugii wuu ooyay wuxuu yiri abshir ya abi wuxuu yiri aabo bishaarayso wallahi tan waa ducadaada ninkii wuxuu ku yiri maxaa ka wada aabo bishaarayso qisadii aaga sheekay markaas wuxuu yiri lacagta aabaha diinta lagu leeyahayne واتني الله ولا قصة وحرب إن كوسو كوكوب ويل كان 27,000 أبيس دين لوليه وكبحي أبيه سو أتجي وحو أدرينسية لعكتن أن كان بحي هؤملين أديجا كقيمة بدن كلمة ذات فيري محوها للدعاء أبيه سو هلي مالنتي كحكتي وحوها لشقة دي سدح مر لعكت هذا كفي عنتاي جاري عصب wax kasto soo galo 10% guri cusub ama ijaarkiisa bilowba laga siinay yarkan inta ka baxday iyo wuxuu helay fiir ducada aabihiis farxada aabihiis deenta uu ka guday ducadiisa insha Allah jannane waa rajaynayna inuu helo insha Allah maadaama uu aabihiisa baari uu ahaa ugu dambeyntii walaal waxa raba qisada ina si fiican u dhageysatid oo si fiican ugu tadabburtid duruusta ama cashirada aad ka faa'iideysanaysidne naftaada ina ku dabaqdid walaalaha ku fiirsanayane ina u soo qortid jazakumullahu khair barakallahu fiikum wa ino jimcada soo socoto iyo qissa cusub salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله